bismillaahi raxmaani raxiim subax wanaagsan daawadayaal qodobada wararka TV saaka idin haya waxaa ka mid ah xiriir qarsoodi ah oo u dhaxeeya madaxweyne Muuse Biixi Taliye Sanbulolshe iyo siyaasi Cabdiraxmaan Cabshakuur oo la ogaaday loolan cusub oo ka dhex bilowday ra'iisul wasaare Khayre iyo xaaska madaxweyne Farmaajo xog la helay oo lagu ogaaday cidda Kenya ku qalqaalisay inay sheegato badda Soomaaliya iyo Itoobiya oo jawaab ka bixisay qararadii muranka dhalisay ee Soomaaliya ee lagu daray dalkeeda wararka dibadda wararka TV saaka idin hayana waxaa ka mid ah haweeney musqul gashay oo la soo baxday cunug ay dhashay oo uurkiisa aysan ka warqabin daawadayaal ku soo dhawaada warkaasi oo fidsan haddii aad ka mid tahay daawadayaasheena cusub ee barta YouTube-ka fadlan rukuma barteena YouTube-ka ee wararka TV si aad u heshid warar iyo warbixino quseeya Soomaaliya iyo caalamka adigoo subscribe dhahaya barteena YouTube-ka waxaa soo shacbaxay oo hadda la ogaaday xiriir qarsoodi ah oo muddo u dhaxeeyay madaxweynaha maamulka Somaliland Muuse Biixi Cabdi iyo taliyihii hore ee nabad sugidda Soomaaliya Sanbulolshe iyo siyaasiga Cabdiraxmaan Cabshakuur Warsame xisbiga mucaaradka ee wadani ayaa ka hadlay wafdi ka socday xisbiyada kulmiye ucud oo gaaray magaalada Hargeysa kuwaas oo ka laabtay magaalada Nairobi kadib kulamo ay la yeesheen safiirada dalalka taageera Somaliland gudoomiyaha golaha dhexe ee xisbiga wadani Cusmaan Afgaab oo warbaahinta kula hadlay xarunta xisbiga wadani ee magaalada Hargeysa ayaa sheegay in wax heshiis ah aan wali laga gaarin khilaafka xisbiyada ee la xiriira doorashooyinka maamulka Somaliland gudoomiyaha Afgaab ayaa sidoo kale waxa uu ka hadlay in wafdigaasi ay la yeesheen kulan siyaasiga Cabdiraxmaan Cabshakuur Warsame isagoona sheegay inaysan ahayn markii ugu horeysay oo mas'uuliyiinta xukuumadda Muuse Biixi ay la kulmaan siyaasigaasi iyo siyaasiyiin kale oo ka tirsan Soomaaliya gudoomiyaha golaha dhexe ee xisbiga wadani ayaa waxa kale oo markii ugu horeysay shaaca ka qaaday in magaalada Hargeysa uu yimaado isla markaana ay xukuumadda Muuse Biixi ku soo dhaweyso taliyihii hore ee sirdoonka Soomaaliya Cabdullaahi Sanbulolshe sidoo hadalka u dhigay xisbiga wadani waxa uu shaaca ka qaaday inaanu ahayn markii koobaad oo lala kulmo siyaasiga Cabdiraxmaan Cabshakuur Warsame waxa uuna sheegay in siyaasiyiin ka tirsan maamulka Somaliland ay kula kulmeen magaalada Makka sidoo hadalka u dhigay wadanka Sacuudi Carabiya isagoo intaas ku daray in dhowr jeer si dhuumaalaysi ah magaalada Hargeysa uu ku yimid taliyihii hore ee sirdoonka Soomaaliya Cabdullaahi Sanbulolshe ka oo mas'uuliyiin ka tirsan maamulka Somaliland ay ku soo dhaweeyeen magaalada Hargeysa ugu dambeyntii gudoomiyaha Cusmaan Afgaab ayaa waxa uu sheegay in Somaliland aysan ka mid ahayn maamul goboleedyada ka jira Soomaaliya balse xukuumadda kulmiye ee Muuse Biixi uu hogaamiyay ay haatan ka dhigayso mid ka mid ah maamulada ka jira Soomaaliya isagoo ku sababeeyay kulamadii ay Nairobi ku yeesheen siyaasiga Cabdiraxmaan Cabshakuur iyo siyaasiyiin kale oo ka tirsan dawladda Soomaaliya iyo tallaabooyinka ay qaaday xukuumadda kulmiye sidoo hadalka u dhigay loolan siyaasadeed oo xoog leh ayaa waxa uu ka dhex bilowday ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre iyo xaaska madaxweyne Farmaajo Seynab Cabdi madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa dhawaan xilka gudoomiye ku-xigeenka maaliyadda gobolka Banaadir ka qaaday Dr. Xuseen Dhagaweyne kadib markii lagu eedeeyay musuqmaasuq sida lagu xusay warbixin ka soo baxday xafiiska hanti dhowrka Soomaaliya shabakada wararka TV ayaa ogaatay in Dr. Xuseen uusan xilkiisa ku weyn musuqmaasuq balse uu jiray khilaaf culus oo bilooyinkii u dambeeyay kala dhaxeeyay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre ra'iisul wasaare Khayre iyo Dr. Xuseen oo isku beel ah ayaa isku qabtay fulinta amar ka soo baxay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ka oo ku saabsanaa arrimaha maaliyadda laakiin uu ka dhaga adeegay Dr. Xuseen sida caadiga ah gobolka Banaadir waxa uu lacag siiyaa odayaal siyaasiyiin iyo xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya oo taageero u ah xukuumadda muddooyinkii u dambeeyay waxa hoos u dhacay dhaqaalaha dawladda dhexe waxa uuna Khayre gobolka u soo wareejiyay shakhsiyaad kale oo xafiiskiisa iyo kan madaxweynaha lacag laga siin jiray balse uu Xuseen u sheegay in uusan awoodin lacagta dadkan loo rabo waana sababta keentay muranka ra'iisul wasaare Khayre iyo gudoomiyihii xilka laga qaaday ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa gudoomiyaha xilka laga qaaday ka dalbaday inuu u soo gudbiyo liiska dadka lacagta gobolka ka qaato iyo meelaha ay ku baxdo lacagaha kale Khayre ayaa liiska ka dhaxelay lacag dhan 400 oo kun oo bil walba ay qaadato marwada koobaad ee dalka Seynab Cabdi Macalin oo ah haweeneydii ka dambeysay in gudoomiye laga dhigo Dr. Xuseen isla markaana ay yihiin qaraabo dhow ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre ayaa dalbaday in lacagta la joojiyo ilaa amar dambe waana sababta keentay in khilaaf uu bilowdo
sidoo kale muran kadib ayaa Dr. Xuseen lagu qabsaday 170 qof uu gobolka ka shaqaaleysiiyay kuwa ay u soo gudbiyeen marwada koobaad ee dalka iyo xildhibaan Mustafa Dhuxulow iyo qaar uu isaga watay wuxuuna waayay jawaab aan ahayn in uu ku sameeyay amarka marwada dalka oo booska keensatay sidoo kalena ay qaraabo yihiin muddo 2 jeer ah ayaa ra'iisul wasaare Khayre uu madaxweyne Farmaajo ka dalbaday in xilka qaadis lagu sameeyo Dr. Xuseen balse markii koobaad waxa ka joojisay marwada dalka halka hadda xilka qaadista lagu soo aadiyay iyadoo dalka ka maqan oo ku sugan dalka Turkiga kulankii u dambeeyay oo ay yeesheen ra'iisul wasaare Khayre iyo gudoomiye Xuseen ayaa ku soo dhamaaday isfaham waa iyo muran hadda waxaa dooda iyo khilaafku ka dhax bilowday marwada koowaad ee dalka iyo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre waxaana khilaafku uu la xiriiraa xilka qaadista gudoomiye ku-xigeenkii gobolka Banaadir iyo warqad la sheegay in Xuseen laga dhigay aeroboortka magaalada Muqdisho lama oga sida loo xalin doono arrintan balse waxaa muuqato in khilaaf aan sahlanayn uu ka dhax jiro marwada koowaad ee dalka iyo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre maama Zeynab saameyn siyaasadeed oo aan yareyn ayay ku leedahay siyaasadda Soomaaliya iyo doorka hogaamineed ee dalka taas ayaana ka dhigayso in gudoomiyihii xilkiisa waayay uu haysto garab adag oo aan loodin karin dawladda Itoobiya ayaa jawaab ka bixisay qariiradii muranka dhalisay ee Soomaaliya loogu daray dalkeeda mas'uuliyiinta dawladda Itoobiya ayaa war kooban ay soo saareen ku sheegay inay ka xun yihiin sawir muran xoog leh dhaliyay oo lagu daabacay bagga internetka ay ku leedahay wasaaradda arrimaha dibadda ee xukuumadda Addis Ababa qoraalka oo la soo dhigay isla website-kii sawirka lagu daabacay ayaa lagu yiri waxaan fahanay in sawir qaldan oo aan la aqbali karin oo muujinaya qariirada Afrika uu si kadis ah ku soo galay bogga internetka ee wasaaradda arrimaha dibadda ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Federaalka Itoobiya isla markii aan arrintan ka war helnay si degdeg ah ayaan sawirkaasi uga bixinay website-ka dawladda Itoobiya waxa ay sheegtay in si kal iyo laab ah ay uga qoomameynayso jahwareer kasta oo ay suurtagal tahay in uu sababay iyo isfaham darro ka dhalatay dhacdadan lagu daabacay website-ka wasaaradda arrimaha dibadda qoraalka ayaa u muuqday mid dawladda Itoobiya ay ku sheegayso inay ka xun tahay dhacdadaas balse ma ahan mid lagu xusay raali gelin rasmi ah sidoo kale dawladda Itoobiya ma aanu xusin macluumaadka dhabta ah ee looga dan lahaa sawirkaasi lagu daabacay barta internetka ee wasaaradda arrimaha dibadda kaasoo carab badan ka dhax abuuray bulshada Soomaaliyeed dadka Soomaalida ee isticmaala baraha bulshada ayaa si weyn uga falceliyay sawirkaasi lagu daabacay bagga internetka ee wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Itoobiya ka oo muujinaya qariirada Afrika iyadoo Soomaaliya lagu daray dalka Itoobiya warar soo baxay ayaa waxa ay sheegayaan in la ogaaday cidda dawladda Kenya ku qalqaalisay in badda Soomaaliya ay sheegato xilli khilaaf dhinaca badda uu u dhaxeeyo Soomaaliya iyo Kenya General Jaamac Maxamed Qalib oo ka mid ahaa saraakiishii ugu sarreysay ee soo maray ciidamada Soomaaliya gaar ahaan booliiska iyo nabad sugidda ayaa maalmaha ka mid ah waxa uu ka sheekiyay halka ay salka ku hayso arrinta muranka dhalisay ee soohdinta dhinaca badda ay hadda isku hayaan Soomaaliya iyo Kenya waxaana hadalkiisa uu ku bilaabay sidan madax ka tirsan dawladda Norway ayaa waxa ay la kulmeen sanadkii 1986 allaha u naxariistay Cabdullaahi Ciise Maxamuud oo safiir ama danjire ka ahaa wadamada Scandinavian-ka ee Yurub waxay dabadeed ka gadeen ama ka iibiyeen in ay Soomaaliya u soo saaraan shidaal badda gunteeda hoose ku jira oo ay Soomaaliya leedahay waana halka ay hadda ka socoto dacwadda isku hayaan Soomaaliya iyo Kenya General Qalib oo hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu yiri Cabdullaahi Ciise hadalkii Norway waa uu la dhacay wuxuuna arrinta ula tagay madaxweynihii hore ee Soomaaliya allaha u naxariistay Maxamed Siyaad Barre aad ayuu u soo dhaweeyay maadaama dana badan Soomaaliya ay ugu jirtay heshiiska shidaalka dhinaca badda ee Soomaaliya laga soo saarayo generaalku oo hadalkiisa sii wada ayaa waxa uu yiri markii ay halkaas marayso ayaa waxa sheekadii ka war helay dawladda Mareykanka waxayna bixiyeen dhaqaale iyo ballanqaadyo kala duwan sida ay arrintaasi u curiyaamin lahaayeen wayna ku guuleysteen haddaba waxa arrinta dhaxmartay Mareykanka iyo Soomaaliya aad uga carooday danjire Cabdullaahi Ciise Maxamuud waxayna arrintaasi sababtay in Cabdullaahi Ciise shaqada uu isaga tago General Jaamac Maxamed Qalib oo ka hadlay waayo aragnimadiisa ayaa sii raaciyay oo yiri wixii ka dambeeyay burburkii dawladda Soomaaliya 1991 waxaa dawladda Norway ay raadinaysay dawlad ka dhalata Soomaaliya
oo ay heshiiska soo saaridda shidaalka badda uga soo saarto maadaama ay kii hore ku hingowday. waqtiga ayaana ku dheeraaday dowladda Norway maadaama ay Soomaaliya dowlad la'aan ahayd sanado badan. aakhirkiina waxaa dowladda Norway ay Kenya ku qalqaalisay in ay sheegato ceelasha shidaalka ee ku jira badda Soomaaliya kuwa hadda la isku haysto. marka ay Kenya ku guuleysatana ay Norway shidaalka soo saari doonto. jananka oo hadalkiisa soo gabagabeeyay ayaa waxa uu yiri Kenya waxay u istaagtay arrinta lagu baraarujiyay waana tan keentay in ay heshiis la gasho xukuumadda ra'iisul wasaare Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaake horaantii sanadkii 2009 taa oo keentay buuqa hadda ka taagan badda Soomaaliya ay leedahay. wararka dibadda wararka TV saaka idin hayna daawadayaal waxaa ka mid ah haweeney 21 sano jir ah ayaa musqul gashay kadibna la soo baxday cunug aysan ka warqabin uurkiisa. haweeney u dhalatay dalka Ingiriiska ayaa qabsatay hadalhaynta warbaahinta iyo baraha bulshada kadib markii ay dhashay cunug aysan uurkiisa xitaa ka warqabin. kaliya Hagar oo 21 sano jir ah ayaa dukaan ku yaala meel xaafad ah ka dalbatay suuli iyadoo moodeysay in ay xaajo caadi ah u baahan tahay. hayeeshee waxaa la yaab noqotay markii ay suuliga ka soo baxday iyadoo wadata cunug yar oo ay hooyo u tahay. Mrs Hagar ayaa sheegtay in iyada laftigeeda ay lama filaan ku noqotay arrintan maadaama aysan wax war ka haynin uurka ay leedahay. dhacdadan fajicisada noqotay ayaa dhacday maalintii Khamiista ahayd ee isbuucan. shaqaalihii dukaanka ayaa si degdeg ah ugu gurmaday si ay u caawiyaan balse waxay umushay ka hor inta aysan kalkaaliyaasha imaan. guud ahaan daawadayaal warkii aad saaka kala socoteen wararka TV waa naga inta.